shirkan ka qabsoomay magaalada Gaalkacyo ayaa diiradda lagu saaray sidii heshiis waara u gaari lahaayeen dadka wadadega magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaana kulankaasi ka qayb galay mas'uuliyiinta maamulada Galmudug iyo Puntland taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya saraakiisha ciidamada maamulada Puntland iyo Galmudug iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug oo isagu daafuray kulankaasi wuxuuna ugu baaqay shacabka inay isdhex galaan magaalada Gaalkacyo inay kala xirnaato xarma haddii hadda maaragtay federaalku efektigareeyey oo uu ka dhigay laba qaybood haddana qaybuhu inay iyagu iska warqabaan baa la rabaa inay is-ogaadaan baa la rabaa in guriga halkaa ku yaalla iyo guriga xaggaa ku yaalla qofku meeshuu dhan waa ku heen kara hadduu ku dhan way ka dhacdaa haddi sababa waa federaalkuna waa xukuma xarunta maaragtay qoromadana waysa adduunkuna waa ugu wada noolaada wax dhibaataa ma laha in magaalada suuqyadeeda iyo ganacsigeeda iyo waxeedu midoobaan ayaa loo baahan sidoo kale waxaa iyaguna dhankooda ka hadlay ahmiyadda nabadda gobolka saraakiishii iyo mas'uuliyiintii madasha ku sugnaa waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka Puntland General Saciid Maxamed Xirsi Saciid Dheere si wax u hirgasho nabadda magaalada ka dhacdo magaalada baahidu ka jirto dadka inta badan ay sanadeen oo laga yaabo inuu ku noolyahay qof aan maalinta hadduu mar helo aan mar labaad heli karin iyo weliba marka uu heli karin xaaladdu ugu goysay wareegayo isaga carruurtiisa wareegaya maxaa furaday marka inna xanuujinaysa oo sida xanuujinaysa ama xanuujinaysa oo xanuunkaasina uu yahay inaynu ka gudubno sida aynu hadda nahay oo aynu waxa aynu ku faani jirnay maba gaari karnay aynu dhaweyno waa in xaaladda wax laga bedelo xaaladda waxa laga bedelayaana waa kelmad keliya waa nabad waa wada noolaasho waa wada reer mudug adduun iyo aakhiro midna waxa ugu gaarimaya adduunna waan ka harnay aakhirana ciqaab baa loo yaalo haddaan sidaan ku socono cimrino nooma harsana inta iyada waa weyn inta dhallinyaradahana mustaqbal ma yeelanayso annagu qayb ahaan ka dhinac ahaan waxaan soo dhaweynaynaa nabadda ugu dambayn taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa la hadlay shacabka iyo mas'uuliyiinta gobolka wuxuuna kula dardaarmay inay ka dhabeeyaan taabagelinta nabadda gobolka haddaan dhinaca gobolkii Mudug loo rajay ka warramo hal baa ka taagan baaro dagaal iyo dhibaato aan ka bilowno mid hore ka bilowno haddii gobolkan lagu heshiiyo oo dadka maslaxad ay u arkaan inay dayacan yihiin amni ahaan dayacan yihiin dhaqaale ahaan dayacan yihiin bulsho ahaan dayacan yihiin dhaqan ahaan dayacan yihiin markii la isla afkarto waxaa imaanaysa in dadka lagu wada dhaco la yidhaahdo okay aan samaysana waxaas علي مالين تلفزيون كون كيبل Gaalkacyo